بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام يا تيفيga Jubbaland TV iyo shaqaalihiisa baa salaamaya saaka kormeer caadi ah baan ku jiray oo aniga oo duq magaalada iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Abdulqaadir Luga Dheere wasiirka arrimaha gudaha Darwiish iyo wasiirka arrimaha bulshada Macalin Maxamed waxaanu eegaynay adigu meelo guriyo si sharci darro lagu degan yahay meelo la rabo in laga dhigo iskoolo meel xarun la rabo in wasaaradda arrimaha gudaha ay degto oo guri looga dhiso adigu meelo qolyo xildhibaanna la rabo in la dejiyo adigu kormeer caadi ah baan ku jiray meelahaas oo dhan waa soo maray haddii alla idmarada meel walba waxaa la rabaa dalku hadda awal ka hor ma qorshaysnayn magaaladuna qorshe ma lahayn hadda wixii ka dambeeya qorshe baa lagu sameeyaa magaalada meel walba wixii loogu talagalay baa hadii alla ma lagu qaban doonaa wixii iska basiibo iyo waxaan loogu talagelinna ma shaqeyn doonaan hadii alla idmo markii hawlahaasaan ku jiray waana iska hawlo caadi ah oo maalin walba socda in maaragtay la eego magaalada iyo xaaladaheeda iyo hadba wixii ka jira iyo sidii wax lagu xallin karo wallahi horta waa mahadsantihiin waxa weeye dadku guryaha dawladda horta waa la deganaayo dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay dad baa deganaa guryaha dawladda 99% in ka badan waxa deganaa dad caadi ah baa deganaa oo shacab ah waxa weeye hadda waaga dawladda carrada kama jirin hadda dawlad iyo maamul baa yimi guri kasta oo la degan yahayna waxa lahaa wax qayb dawladda ka mid ah baale wasaarad baale wakaalad baale degmaale gobol baale ciidamada qaybahooda kala duwan baale meel walba oo la deganaa oo guri walbana cid baa lahayd marka haddii cid walba shaqadeedii ay qabanayso waxay rabtaa cid walba inay ku shaqeyso meeshii waagii hore loogu talagalay dawladda marka waxaan rajaynaynaa guryaha dawladda dadkii deganaa waa ku soo macaasheen waa ku liibaaneen wixii hadda laga saaray waaba laga saaray laakiin waxa hadda ku haray gacanta dadka shacabka inay ku talagalaan inay baneeyaan intii aan loo imano iyaga hadhowdii aan maaragtay si qarba aan looga saarin waxa fiican in qofku isagoo mahadsan inta ka guuro guriga hadduu furayaa leeyahay fariisa keeno yiraahdo anigu intaas muddo baan ku soo dhaqmayay haddana waa kan dawladda baan u soo celiyay waa loo mahad celinayaa markaas kuwa kale oo wadooyinka iyo meelaha aan ku habboonayn dhista iyagana waa uga digaynaa waxaan filayaa inaad la socotaan hadda ka hor inaanu banaynay meelo wadooyin oo la dhistay iyo meelo si sharci darro lagu dhistay inaan la baneeyay waa la socotaan marka waa loo iman doonaa hadda haddii ayan iyaguna ruuxoodu ka taxadarin cid kasta oo si khalada wax u dhisatay maalin maalmaha ka mid ah berri miyaa saactama miyaa maanta miyaa waa loo tegayaa marka waxa waaye magaalada shaqa laga dhaxayaa waxaana la rabaa inay meeshu magaalo noqoto oo ay noqon meel iska cid walba siday rabto u degto oo cid walba siday rabto u isticmaasho dhulka inay meeshu magaalo noqoto oo noocyada magaalada loo design gareeyo oo meel walba waxay ku habboon tahay laga dhigo baan rabnaa haddii alla idmo marka baaqaasaan u jeedinaynaa dadka inay maaragtay ku talagalaan